waxaan rabaa madaxweynaha waxaan ka codsaynaa inuu cadalo tago dagaalada ka hogaamiyo oo meel saadka laga gaari kara tago naftirkooda saraakiisha meelna waa dhooban yihiin meelna ma tagaan marka xoogaa walaxaan ku tuhmowhaynaa marka xukuumadda Soomaaliya waxaan ka codsaa diyaaradda 48 saac soo naqaweyso in lagala naqdo fasaxa ay dalkan uga shaqaysatay laysanka in lagala naqdaan codsaha man hadda guddiyaad magacawdo madaxweynuhu sidii sacjee ma qabay haraahireen haddii ay waayeen magacaabkii waxay ismari jireen ay xala soo galeen xamar war shariif siyaasad isaga celi guddigaas agoon yar gaabane guddiyooban ku jiro ninkii yaaqtirshay geeda tirshay yaaq ka taga waxba tirinaalay wayaan bilaasha warka loo reereed maraa madaxweyne fadhiga ka kac guddi rasmiyana magacaaw 45 biri meel la dhisaayay oo buunda oo dadka ka soo gudbo waaya jiro madaxweyne naftirkaaga waxaa rabaa saraakiisha inaa ku amarto ilmahaas lagu dhifto gantaal lagu dhifto buundadaas la dumiyaa la rabaa waxay tahay geedda maahan lagu tuurtuuraayo guryaal la gubo waayo maa buundada la gubo horta waxaa ayaanta soo gaaraysay oon aniga la cajabsanahay diyaarado dalkaanoo qaraxya ka socdo oo dhibaata ka socoto shaqay jirayaa hadda in yaa walax la yiraa keenay marka xukuumadda Soomaaliya waxaan ka codsaa diyaaradda 48 saac soo naqaweyso in lagala naqdo fasaxa ay dalkan uga shaqaysatay laysanka in lagala naqdaan codsaha waa khalad ay nagu sameeyo waayo oo qalqal amniya la yiraa ay nagu sameeyo waayaan dalka nabad waaye waana nabad abaabul qof ka dakana badan waa yar tahay waana dhex rogaa marka wadaadadan oo warqadaha soo saaraayo ee meel kastaa la galaa dhowaayo iyo shabaabkaas waa isla socdaan wax isku suntan waa aadana u cambaarayhaynaa waxaan rabaa beelaha Soomaaliyeed horta in la kala shirsho ma rabo inay isla shiraanaan rabaa inay isku cadow naqdaanaan rabaa inay isu gurmadaanaan rabaa in xanuunkooda hal meel jasadka waa isku xanuun inuu hal meel ka wada haayaan rabaa waxaan rabaa madaxweynaha waxaan ka codsaynaa inuu cadalo tago dagaalada ka hogaamiyo oo meel saadka laga gaari kara tago naftirkooda saraakiisha meelna waa dhooban yihiin meelna ma tagaan marka xoogaa walaxaan ku tuhmowhaynaa waxaan rabnaa istuhumna dhaca haddii dagaal yimaado istuhumaa ima haayo istuhumkaasou nooga baxo waxaan ka baqaynaa inaan ununka saan isu tuhmaynaba noogala faa'iidaysto waxaan rabaa hadda shalay dagaalaa dhacay dagaalka dhacay isu gurmadka waa yaraay waxaan rabnaa dadka soo kacaayo laydinka heri maa waa laydin daba joogaa madaxweyne waxaan kuugu soo celaa madaxweynaad isku heri laheeda indhihiisaa isku jiro indhihiisaa isgalay waxaan rabnaa ninna waxawaaye inuu shabaab isku wareejiyo oo kadib doorasho qabsadow rabaaho shabaabka uu heshiis kula jiraa ninna shabaabkiiou barakiciy dadkiiou barakiciyowhaa shicibka meelay u ciirsadaanay waayeen ha kuugu sawdaano waxaan rabnaa inaad tagto cadale dadka ay kuugu sawdaan meeshaas dagaalka ka hogaamiso dowladaha isu soo baheestay ee diyaaradahooda joojiyana inta laab laga qaadaan rabaa dalkayna ununkaa iskale cadow oo qofti noo soo hogaamaysana ka yeeli mayno waxaa kaloon rabaa waxa la sheegayo amxaaraan noo soo socoto hebloobaa noo soo socdo war amxaara idana ajanday leedahay dalkiina idinka u dhashee ku dhindha oo dagaal gala oo isu kaalmeeya waxaan rabnaa wixii dhintana waa u tacsiyeyhaynaa wixii dhaawacanna waa u duceyhaynaa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuunaan leenahay waar nimanka cadow waaye ha laysu kaashado ha laysu tago
waxawaaye igaarkan 17 cimro u socdo iyadoo dhibaato dalkiisa ka socdo 45 beri meel la dhisaayay oo buunda oo dadka ka soo gudbo waaya jiro madaxweyne naftirkaaga waxaa rabaa saraakiisha inaad ku amarto ilmahaas lagu dhifto gantaal lagu dhifto buundadaas la dumiyaa la rabaa waxay tahay geedda maahan lagu tuurtuuraayo guryaal la gubo waayo maa buundada la gubo buundada ha la gubo madaxweyne fadhiga ka kac ummadda qur'aan ha akhrisato ilaahay ha u naqato ilaahay ha tuugto duubabka fadhiga ha ka kacaano qofay duub u naqdaanay rabaan yay xamar isku canaadin hebelaa saanaya hebelaa duubaya hebelaa imaanaya hebelaa imaan wallaahi bilaahi tallaahi lamadiinna waa laydinkala usaa isa heesto qof laga yeelaayo ma jirto qof la arka cadala ha tagtee dagaalka maasa ka hogaamiso qof fadhi karta male waxaa la rabaa inaan fadhiga ka kacno qof isku halayn qoftii tagtana waa u mahad celaynaa niman hadda guddihaad magacowda madaxweynow sidii sacjee ma qabay haraahireen haddii ay waayeen magacaabkii waxay ismari jireen inaysa xalad soo galeen xamar guddiga naftirkiisa meesha inuu ka dhex muuqdaa la rabaa dadka meesha ka dagaalayo guddigayan ku jirin waxawaaye adiga sideedaba waxaa lagaa rabaa beledka xanaa taal dadka shariifay u dhinto waayaanaa taal war shariif siyaasad isaga celi guddigaas agoonyar gaabane guddigooban ku jiro ninkii yaaq tirshay geeda tirshay yaaq ka tega waxba tirinaa layidhi yaan bilaasha warka loo reereed maraa madaxweyne fadhiga ka kac guddi rasmiyana magacaaw dagaalkana ha hogaamiyaano adigana cadala u fadhiiso waana mahadsan tahay meel lagu hera ma joogto aniga hadda waxaana la dhihi jiray daa'uud dagaal ma rabiyo daa'uud sideedaba oraxda may u dhacdo ciidanka aadaa haddaana xabad waa tari waaye oraxda may u dhacdo lixaya xure maal lama geeyo lamana tago risaas lama siiyo mahaasay rogaan waxa waaye dagaalka yaan la isku hagranin dowladahaana yaan la isugu hagranin qabiilahaana yaan la isugu hagranin waxa cadow waaye waa kala amar qaataan hal qofooday isku yihiin godada ina qoteenay ka soo baxayaan ilmuuqati soo dhowaada waa mahadsantihiin